ورحمة الله وبركاته دكتور إبراهيم وأمة يونيفرسيتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم waxaan doonayaa maadaama maanta Madeira aan joogno in xogaygu su'aalo aan ku weydiiyo ku saabsan jaamacadda. Marka su'aasha iigu horeyso ka bilaabaya waxa weeye Dr. Ibrahim inaad wax yar faahfaahin nooga bixisa jaamacaddan waan maqalnaa maqal bay nagu tahay inta soo aragtina way yar yihiin marka bal jiilka soo baxaya bal u faahfaahi iyo waalidiintooda oo reer Madeira. Okay, waa su'aal aad u muhiim ah dad badan maskaxdooda ka guuxayso. waa jaamacad islaami ah xarunteeda weyn waxay ku taalaa magaalada la yiraahdo Kajiado. waxaa la aasaasay jaamacadda sanadka markuu ahaa 1997 waxaa ma aragtay hal aasaasay hal kulliyad ah ama hal college ah oo dhinaca shariicada iyo arrimaha diinta ah. sanadka markuu ahaa 2013 waxay u gudubtay in loo qorsheeyo jaamacad inay noqoto oo magac jaamacadeed ay ku shaqeyso. warqadii ogolaanshaha ka heshay dawladda sanadka markuu ahaa 2019 waxaa jaamacadda la siiyey warqadda aqoonsiga kama dambaysta ee jaataaga loo yaqaano ee dawladda ay jaamacadaha ku aqoonsato. sidaasayna ku shaqeysaa ilaa maanta oo ay tahay jaamacad islaami ah oo jaamacaddii ugu horeysay islaami ah waddanka laga aqoonsado. ما شاء الله خير الله كسيو شيخ إبراهيم دكتور إبراهيم وحكلو دكتور إبراهيم عن دنيا إن حقيقة نوقف فايسة بل كوسس ككل دوان إن شاء الله وجامعة أي بحنيسو إن بالحقيقة وحنوقة بما ارتفع فايسة إن شاء الله إن شاء الله. آد بعد ما هتسنتهي جامعة وحي بحساب كوسس لبد دينعبة دينع دينية يا رماه دينته إسلامك iyo dhinaca sekulaaga ee iskuulka iyo culumtan iskuulka lagu barto labadaba waxay ka kooban tahay jaamacadda ilaa 5 kuliyadood ama kuliyadda koobaad waxaa la yiraahdaa kuliyadda shariicada iyo arrimaha diinta islaamka. kuliyadda labaad waa kuliyadda waxbarashada ee macalinimada laga barto. kuliyadda saddexaad waa kuliyadda naasinka laga barto iyo kalkaalisanimada. kuliyadda kale ee idan ma arag jaamacadda ka jirto waa kuliyadda laga barto businesska iyo technology-ga iyo kuliyad kale oo ayadana laga barto arrimaha shariicada iyo qaanuunka shariicada iyo looga oo labadaba ardayga uu isla baranayo. 5 kuliyadood ayay ka kooban tahay jaamacadda oo waxbarashadoodan ay isugu jirto islaami iyo mid dhinaca sekulaaga labadaba. ما شاء الله شيخ إبراهيم دكتور إبراهيم وحكى له وحير عن سؤال أنت عن ولي كبحن محا براكتيكولز أو يعني شقوين أو عن كقبض oo dadka ma aragtay ay gacanta wax ka qabsadaan maxaa kamid ah oo ma aragtay jaamacadeeda ka socdo ka bartaan insha Allah. jaamacadda waxay leedahay qayb loogu talagalay farsamada gacanta qofka intuu muddo yar ku akhristo uu hadana si xirfad leh ugu shaqeysan karo koosaska loo yaqaan TVET-ka Kambasi iyo ay ku leedahay meesha la yiraahdo Dhika ayaa lagu baraa koosaskaas oo ardayga ma aragtay farsamooyinka gacanta oo dhan haday tahay electronic iyo dhinaca korontada haday tahay baybabka iyo dhinacan biyaha iyo biyo xireennimada iyo waxaan koosaska kale oo dhan ee farsamada gacanta kulli waa lagu baraa. ما شاء الله دكتور إبراهيم وحكلون كويدينيا سان أركي هيا وحدنا لجع شيء إن قالنا وجيل كنا سوق كوريو إن جامعة أي قوة حرودان بعد جع شيء مركب حدنا لجع لاتين أن قالنا وقول لي حنا جامعة دوين كفرح بدنا وكينيا كجرت. وسؤال مهم una baahan inaan uga jawaabno ummadda iyo dadkana dhageysanaya dhammaan. waxyaabaha aan jaamacatul kaga duwanahay ummadda kale jaamacadaha kale kaga duwanahay waa jaamacad islaami ah. wax walba oo waxbarasho oo dhaxdeeda ku jirta waxay ku salaysan tahay akhlaaqda iyo dhaqanka islaamka. labo waa jaamacad xilli kooban oo ardayga ku bogi karo haday tahay certificate wuxuu ku bogi karaa ardayga 2 semester oo ka kooban 6 bilood kaliya. haday tahay diploma wuxuu ku bogi karaa 1 sano. haday tahay degree wuxuu ku bogi karaa 2 sano iyo bar oo kaliya waqtigii oo kooban. waxa kale oo ma aragta lagu dooran karaa waa jaamacad ardayga markuu saa u dhameeyaba oo uu qalin jebiyay shahaadadiisii oo dawladda aqoonsan tahay oo meel walba uu kaga xamaalan karo dal iyo dibadba uu hor ka qaadanayo. marka waxyaabahaas oo dhan bay jaamacatul kaga duwan tahay jaamacadaha kale xagga fiista iyo markii la dhaho dhaqaale bixinta
way ka jaban tahay jaamacadaha kale koosaskooda markii loo eego intaasoo dhan ayaa lagu dooran karaa jaamacatul umma. maasha Allah khayr Allah ku siiyo anigoo tixraacaya waa ka jaban tahay aatiri xoogaygo sii dabagalaya maalmahan xoogaygo dadka maaliyadii ama maal qabeednimadii ayaa xoogaygo laga liitaa dadka balyara tabaalaysan oo xoogaygo jeebkooda uu hooseeya maxay ku kaalmeynaysaa jaamacadda maxaa maartay oo kaalme way ka bixin kartaa oo ay ku dhaantaa jaamacadaha kale waa su'aal aad muhiim u ah jaamacadda laba program bay u haysaa dadka tabarta yar ama faamiliyaasha dhaqaalahooda hooseeyaan ee ilmahooda aan akhriska sidii la rabo uga bixin karin labada program waxay kala yihiin mid waa scholarship oo ardada jaamacadda ay ka bixinaysa lacagta scholarshipka wuxuu leeyahay qayb full ah oo ardayga hadduu codsado oo processkeeda uu maro uu si full ah ku heli karo laga bixin akhriskoo dhan wuxuu ku heli karaa qayb kale waxaa jirta scholarshipka ka mid ah oo bar laga bixinaya ardayga مثلاً waxaa la dhihi haddii lagaa rabay مثلاً 30,000 adiga nus iska bixi nus baa lagaa bixini saasuu ku wadan karaa waxaa kale oo ma aragtay dhici kartaa labadaba inuu ardayga isku daraba hataa oo qaybna uu ku codsado in laga bixiyo scholarship ahaan qaybta kalena la yiraahdo deyn ahaan yaa lagaaga bixin hadhow yaryar iskaga soo celi waana programka labaad ee ardada tabarta daran iyo faamiliyaasha tabarta daran ay jaamacaddu ku kaalmayso in ardayga la yiraahdo lacagti jaamacadda waa lagaa bixin in yar laakiin adiga hadhow soo celi in yar bil walba maxaad iska bixin kartaa 5,000 intaas iska bixi in yar muddo loo qaban muddadaas uu isaga dhamaynsi yar akhriskiisina uu dhammaystiran marka labada program oo ka kooban mid scholarship ah iyo mid deyn aan dulsaar lahayn ah oo ardayga intii laga bixiyo inuu yar u soo celin bay labadaba jaamacadda ugu talagashay dadka saasoo kale u tabaryar ee waxbarashada sidii la raba aanan isaga bixin karin waa mahadsantahay Dr. Ibrahim waxa kaloo xogaygo aan ka weydiinayaa jaamacadaha badi oo wadanka ka jira waxay u badi yihiin maadi marka umma maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale oo dhanka diinta islaamka jiilka soo koraya maxay u haysaa umma waa su'aal fiican umma waxay kaga duwan tahay jaamacadaha markii la dhaho dhinaca akhlaaqda iyo tarbiyada ardayda iyo dadka dhalinyarta ah waxay ku salaysan tahay kulli arinta islaamka jaamacadda waxay leedahay masjid weyn oo ardada ay ku tukadaan shantooda salaadood oo loo ogolayn wiilashoo kale inay guri ku tukadaan waxay leedahay barnaamijyo quraanka lagu xifdisiyo ilmaha intuu ardayga jaamacadda dhiganayo uu quraankiina baran karo iyo diintii waxay leedahay muxaadarooyin joogto ah oo loo qabto ardada oo wacyigelin dhanka diinta ah waxaa lagala dagaalaa ardada wax alla wixii akhlaaq xumo ah oo diinta islaamka ka hor imaanay sida timaha hadda aan aragnay la dheereysanay iyo labisyada qaabka xun iyo ardayga ma soo gali karo xafiis ay jaamacadda leedahay ama class ay leedahay asagoo si akhlaaq la u labisnayn asagoo ma aragta aan si u controlnayn waana la controla ardada dhinacaas marka waa wax muslimiinta ay ku dooran karaan jaamacatul umma ilmahoodina tarbiyadooda ay ku aamini karaan oo kaga duwan tahay jaamacadaha waad mahadsantahay Dr. Ibrahim waxaan jeclahay inaan ku sii weydiyo maadaama aniga aanan arkin ama reemadeerana ay arkin jaamacadda umma bal haddii magaalada ay headquarterskeeda aan balgalno adoo noo sheegaya magaalada tay tahay bal maxay kaga duwan tahay dhismaheeda iyo qaabkeeda seen ku garan karnaa jaamacadda inay tahay jaamacad islaamiya aad baad ugu mahadsantahay su'aal fiican jaamacatul umma kow meel waxay ku taalaa environment iyo jawi ahaan aad u degan oo qabow waa magaalada la yiraahdo Kajiado oo qabowgeeda aan isla wada garanayno jaamacadda dhismaheeda waa dhismo casri ah oo aad loo qurxiyay ilaa markay wareegeen qolyahan wax qiimeeyaan jaamacadaha Kenya ku yaalaan bari hore waxaa lagu qiimeeyay inay tahay jaamacad ugu dhismo qurxan guri dabaqa oo ka kooban ilaa 10 dabaq iyo guryo kale raacsan bay leedahay waxay leedahay guryo deegaan oo ardada labada qaybood gabdhaha iyo wiilashaba ay degi karaan amnigooda iyo akhlaaqdooda iyo wax walba ay ilaalsan tahay masjid weyn bay leedahay oo ardada ay salaadahooda ku tukadaan ku i'tikaafaan ku cibaadaystaan xilliyada kala duwan oo dhan marka waxay leedahay security adag iyo amni sugan oo la isku haleyn karo oo ardada amnigooda la sugayo wixii jaamacadda gudaheeda soo galo waxaasoo dhan bay jaamacadda leedahay meeshaasayna ku taala Kajiado la yiraahdo
ما شاء الله واد ما حسنتها دكتور إبراهيم وحكروا دكتور إبراهيم عن كويدنا يا ما دام جامعة آد النوجع ليستي النوجع ليسي وأنا نفتيد هذه حلقة عن جيل كيروسوكا أنا هي عن ببع كله لها ونقلي لها جامعة دا بالنوشة جريد كلوبة هاي دانك سيرتيفيكت دانك دبلومة دانك ديجري بالقيمة اللي قلها oo KCSE maartay gradeyalka loo baahan yahay oo jaamacada ay ugu ogolaan karto hadii aan anigu arday ahay bal waxa noogu sheeg waa su'aal fiican waxaad ogsoontihiin wadan waxaan ku noolnahay waxbarashada ay leedahay system iyo nidaam ardaygana wax walba uu akhrisanayo shuruud baa looga baahan yahay marka jaamacatul umma programmadeeda waa certificate diploma degree iyo masters intaba hadda waa ka furan yihiin afarta program PhD yaalna waa qorsheysan yihiin ardayga marka raba jaamacadda inuu soo galo haddii uu haysto grade-ka ah C- ilaa wixii ka hooseeyo sida D+ iyo waxyaabahaas oo kale ah wuxuu fursad u heli karaa inuu galo certificate uu ka bilaabo jaamacadda kadib diploma kadib waxbarashadiisa saa ku sii wato ardayga haysta grade-ka ah C plain ama C oo keligeed ah wuxuu fursad u haystaa oo geli karaa programka diploma uu ka bilaabi karaa jaamacadda ardayga haysto C+ iyo wax ka badan wuxuu fursad u heli karaa inuu ku biiro degree-ga jaamacadda heerka degree ayadoo course walbana loo fiirin doono mawaadda hoose ee gudaheeda hoos iman doonto wixii intaa ka koreeya degree-ga ardayga markuu masters-ka ku biiray asagana waa inuu haysto waxbarasho jaamacadeed oo la aqoonsan yahay oo grade-keedana fiican yahay